waalid gabadhan waxay ahayd 10 jir waxay la socotay hooyadeed oo shopping ka samaysanaysa dukaamada lagu gado kareemyada dumarku ay marsadaan meeshii maqalka ee lacagta laga bixinay hooyada markay gaadhay waxay aragtay gabadheedii 10 jirka ahayd oo wadata kareem la yiraahdo anti aging skin care oo ah kareemyada la isku yareeyo wajiga qofka lagu yareeyo la marsado waxay ku tiri hooyo kareemkan maxaad ka rabtaa waxay tiri maami I just want to look like 4 years old hooyo waxaan rabaa inaan u ekaado 4 jir gabadhu waxay ahayd 10 jir maxaan u sheegayaa qodobka waalid jiilka gabadhaas iyo caruurteenu ay ka tirsan yihiin magac bay leeyihiin waxa la yiraahdaa Gen Alpha ama Alpha Generation insha Allah ta'ala waxaan rabnaa si faahfaahsan inaan uga hadlo dhaqamadooda ugu waalid habeenkii markay seexanayaan hadii caruurtu ay teddy bear saa iyagoo haysta ku seexan jireen ama bombolo maanta markay hooyo seexato ama aabo musqushay galaan iyagoo feeranaya iyagoo marsanaya waxyaabahan Alta Beauty Bubble Skin Care Elf Beauty waxa la midka ah ay marsadaan maanta dumarka waaweyn why because caruurtaadu ma daawadaan newska ay waxay daawadaan TikTok influencerska iyo celebrity-ga fanaaniinta xayisiinaya kareemyadan qaar baa caruurta wajigooda dhaawici kara waalid legacy channel wuxuu dhawaan si faahfaahsan uga hadli doonaa dhaqamada ay leeyihiin Gen Alpha oo caruurteena fadlan subscribe gare Walid Legacy, it shines so bright, a rising star in the endless night, from roots so deep to skies so high, our name